Fikradda ninka Soomaaliga ahi uu iska qabo ayaa waxay ahayd qof la soo barbar dhigo oo lala simaha jooge in uu isagu ka wanaagsan yahay nin kasta oo jira. haddana iyadoo sifooyinkaasi ay jireen ayaa waxa kale oo jirtay madax bannaani iyo kelinimo iyo martigelin ama wax tashiirid ama kale reebreebid joogto u ahayd noloshiisa. halisi meel ay jirto kama gaban jirin tiyo xataa marmar lagu nafwaayayo oo geesinimo iyo waxa uu lahaa adkaan wax la barbar dhigaa aanay jirin. dhulka uu hooyga ku leeyahay waxa uu dhaxeeyaa lama degaan iyo kayn gaab odaxley ah oo uu noloshiisa ka heli jiray. sida lama degaankaasi loo naasnuugo biyo iyo baadba aad ayuu ugu darnaan jiray oo xeelada yaqaanay. Soomaalidu waxay ahayn dad aad iyo aad u dagaal yahanina iyagoo isticmaalaya tabo lagu hoogo. waxay qaadan jireen gaashaan ka samaysan haraga gariga oo waxay u dagaalami jireen laba iyagii oo ninba wato waramo wax tumaatiya oo af leh iyo bilaawe amba golxad oo inta midi kii kale ku soo maqan yahay ayaa isagiina midii ku taala. waxa ay jeclaan jireen Soomaalidu dagaalada gaadmada ah iyo kuwa gacantaba la isula tago ee kaymaha gaagaaban ee jiqda ah la isku hareero. Soomaaligani ugu geesinimada badan ee ugu qabka badan ee dagaalyahanka ugu naxariista daran ah ayaa waxa uu awoodi kari jiray inuu sameeyo haddana wax weyn oo gobonimo leh oo waxa uu diyaar noqon jiray inuu dhiigiisa u qubo dhulkiisa. waxa uu dhimani jiray isagoo sidaa u arkaya nafta ka sii gurmaysa oo aan odhan jirin malaha waad dhimanaysaa oo seeftii oo ku taagan ayuu qosol ku dari jiray oo naftu ay kaga bixi jirtay. wax yar buu ka warwari jiray nabarrada ku dhacaya. nabarradana waxaa lagu dhayi jiray digada geela oo inta ay caabuqaan ayay marka dambe haddana bogsoon jireen. ninkii dhulmareenka ahaa ee la odhan jiray kabtan J.H. Speak ayaa isaga oo ka hadlaya Soomaalidii ambaanada u ahaan jiray ee dhulka u kala wadwadi jiray ayaa waxa uu sheegay in dhif mooye aan la arki jirin niman Soomaaliyeed oo aanay naburo ku oolin oo naburrada qaarkood sida ay u ba'naayeen aad ka yaabaysay sida uu uga kacay. saraakiishii reer Yurub ayaa waxay ogaadeen haddii Soomaalida basar adag lagu qabto loona tixgeliyo sharaarada yar ee kulul ay leeyihiin waxay Soomaalidu noqon jireen bay yiraahdeen booliis iyo military wanaagsan. inkasta oo marnaba aanay ogolaan jirin in lagu xamaasho oo aanay dhabarka ku soo leexinaynin. xagga dhar xirashada Soomaalidu amba military ha ku jiro amba ha ku taagnaado dirayskii Ingiriiska amba garan ha xidhnaado amba surwaal gaaban amba dharkii hidaha u ahaa amba toob amba mara khayli ah oo uu ku yaalo shagaarkii sida dharka Scottishka ah oo weliba aad loo jeclaa haddii ay ku taalo shaambadii warshada dharka samay jirtay ee Manchester ama marada la soo daray balay milmil ku yaala oo biyo dhooqale oo midabka huruud ah yeeshay. wax kastaba ha soo gashadee Soomaalidu waxay ahayd dad sida loo qoray ama qaabkoodu ay ishu qabanayso oo dirays qaad fiican. tani waxa si gaar loo arki jiray marka ninku uu ugu xoog badan yahay ee uu isku buuxsamo isagii oo galkii seefaha noocyada kala lahaa ee tolkiis gacan ku sita ta kalena gaashaan qaabka wareega oo kala leh oo ka samaysan haraga gariga amba wiisha amba goodirka. gal yar oo isna harag ka samaysan oo kitaabkii quraanka ahaa uu ku jiro oo inta suun haraga tacalada loogu xidhay qoorta laga soo lulay oo halkaas barbarta sidaa uga soo dhacay. xagga diinta Soomaalidu waa muslim wanaagsan oo waa sunni walow ay xumad jidbaahi ay ku jirtay. sida marka nin darwiisha amba wadaad diinta uu u marinayo intaan meel baad leh loo guurin ama marka la doonayo in weerar la qaadayo lagu soo guulaysto. xagga haweenka sida loola macaamilo Soomaaligu waxa uu ka soo dhex baxay dunidii muslimka ahayd. haweenka xijaab lagu ma hayn jirin oo waxoogay xorriyada oo aan dunida carabta lagu haynin ayay qabeen. Soomaalidu waxay ahaayeen dad safsafra oo socodka ku daran nasiina la'aan iyagii oo socoteen jiray oo wax badan aan qaadan jirin oo haddana goor walba guurguuri jiray ayaa waxa loo yaqaanay oo la odhan jiray dadkii bilaa barkimada.